kulanti waxaan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta falanqaynta maalmo yar ayaa waxaa ka harsan in baaso koobka aduunka ee sanadan ka dhacaya wadankaasi Ruushka sidaanu la soconay isla markaana wararkeena hore aan idinkugu baahinay waxaa ka qayb galaya 32 wadan 4 wadan oo kamidana waxay ka soo jeedaan wadamada Carabta haddaba waxaanu ku eegi doonaa waa kuwee wadamada Carabta ee ugu badan ee ka qayb galay koobka aduunka iyo taariikhii ay ka qayb galeen inta badan wadamada Carabta iyo dadkoodu ayaa ku faanaya heerkan wanaagsan ee sanadan gaareen iyo waliba tiradan afarta ay ku matalayaan wadamada Carabta waxaana ay rajeynayaan in natiijo wanaagsan ay kala soo laabtaan ka qaybgalka koobka aduunka sanadan 2018 Ruushka lagu qabanayo wadamada Saudi Arabia, Tunisia iyo Morocco ayaa wadamada ugu badan ee ka qayb galay koobka aduunka waxaana ay ka qayb galeen mishan jeer wadankaasi Algeria ayaa isagu sidoo kale 4 jeer ka qayb galay Masarna waxay ka qayb gashay 3 jeer haddaba aan eegno sidee baa looga kala qayb galay wadanka Saudi Arabia wuxuu ka qayb galay sanadii 1994 98 2002 2006 iyo 2018 oo sanadana wadanka Tunisia ayaa sidoo kale waxa uu ka qayb galay sanadii 1978 98 2002 2006 iyo waliba 2018 Morocco waxay ka qayb gashay 70kii 8 iyo 60kii 94 98 iyo 2018 wadanka Algeria wuxuu ka qayb galay 82 1986 2010 iyo 2014 wadanka Masar oo 3 jeer ka qayb galay ayaa isaguna wuxuu ka qayb galaya 1934 1990 iyo sanadan 2018 sidoo kale wadankaasi Kuwait ayaa ka qayb galay 1 jeer wadanka Ciraaq iyo waliba wadanka Imaaraadka ayaa sidoo kale min 1 jeer iyaguna ka qayb galay kulanti waxaan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta falanqaynta maalmo yar ayaa waxaa ka harsan in baaso koobka aduunka ee sanadan ka dhacaya wadankaasi Ruushka sidaanu la soconay isla markaana wararkeena hore aan idinkugu baahinay waxaa ka qayb galaya 32 wadan